bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka caawa shabeelladii hayse waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo magacaabay garsoorayaal ka mid noqonaya maxkamadda sare ee dalka faahfaahinno laga helayo dabley hubaysan oo mid ka mid a shaqaalaha wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta ku disha degmada daynile ee gobolka banaadir iyo wasiirka awqaaftii arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya oo ka hadlay dilka loo geystay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo xukun dila gurigay nin ka tirsanaa al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta kormeer ku tagay xarunta national theatre ee magaalada muqdisho dibadbax looga soo horjeedo bajaajle xalay dil lagu geystay muqdisho oo maanta ka dhacay muqdisho kulamo xal looga gaarayo dagaal beeleedyo ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ka dhacay degmada macaasi ee gobolkaasi wararka dibadda ee caawa shabeelladii hayse waxaa ka mid ah trump oo dhiggiisa turkiga kala hadlay colaadda dalka siiriya iyo xukun xabsi ah oo lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee dalka bakistan waa habeen isniina talaado ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay 24 Diseembar sanadka 2018 warkaasi oo dhan waxaa inoo hay wariyeenna xasan kaafi xuseen axmed mahadsanid nuurdiin xasan ibraahim nuurdiin shardi bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warkaasi oo fidsan dabley hubaysan ayaa mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ku dishay degmada daynile ee gobolka banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheenna ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki kooxo ku hubaysan baasolado ayaa maanta toogasho u geystay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta sidoo kalena ka mid ahaa macallimiinta wax ka dhigi jiray jaamacadda daaha dilka ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda haanta dheer ee degmada daynile ee gobolka banaadir iyadoona goobta ay isaga baxsadeen kooxihii dilka geystay allah u naxariistee marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray maxamed cabdi waxaana uu caan ku ahaa oongooye ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay tageen goobta uu dilka ka dhacay waxaana ay sameeyeen baaritaano la xiriira baadigoobka dadkii ka dambeeyey dilka loo geystay maxamed cabdi oongooye lama oga sababta loo dilay iyo cidda leh mas-uuliyadda dilka balse waxa uu qayb ka noqonayaa marxuumkan dad badan oo dowladda u shaqaynaya oo siyaabo kala duwan loogu dilay 17 degme ee gobolka banaadir dhanka kale war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dilka loo geystay shaqaalaha ka tirsanaa wasaaradda warka ayaa waxaa sidoo kale tacsi loogu diray marxuum maxamed cabdi oongooye waxaana sidoo kale lagu cambaareeyey falkaasi dilka ah wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa sidoo kale waxa ay tidhi waxaan aad uga xunnahay falalka noocan ah ee had iyo jeer loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed aad iyo aad ayaana uga xunnahay dhibaatooyinka had iyo jeer loo geysanayo dhallinyarada soomaaliyeed ee aan waxba galabsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa magacaabay agaryaqaano cusub oo ka mid noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida warkani waxaa la socday waryaheena nuurdiin xasan ibraahim nuurdiin shardi oo haatan istuudiyaha igula sugan nuurdiin waxaad ka warbixisaa warkani ka soo baxay madaxweynaha oo ku aadan magacaabista garyaqaanada cusub waa mahadsantahay xasan kaafi wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo noqol ka mid a soo gaartay raadiyaha shabeelle muqdisho ayaa waxaa lagu soo saaray magacaabis madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu ku sameeyey garsoorayaal ka tirsan maxkamadda sare ee dalka kadib soo jeedin uu kaga timid guddoomiyaha maxkamadda sare mudane baashe axmed yuusuf madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa magacaabay ilaa iyo dhowr garyaqaan kuwaas oo ka mid noqonaya garsoorayaasha dalka gaar ahaan maxkamadda sare ee dalka garyaqaanada madaxweynaha uu magacaabay xiliilka garsoornimo ee maxkamadda sare ayaa ah garyaqaan xasan cabdinuur cabdiraxmaan garyaqaan abuukar axmed cali khazaali garyaqaan cabdiqaadir idriis ciise iyo sidoo kale garyaqaan suleymaan maxamed maxamuud madaxweynaha sidoo kale ayaa garyaqaanadan ku adgeeyey iyo sidoo kale garsoorayaasha uu magacaabay inay dhowraan sarreynta sharciga dalka iyo in ay si siman ugu adeegaan shacabka soomaaliyeed tallaabadan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku saleysan dardargelinta golaha adeega garsoorka iyo sidoo kale wax ka qabashada cabashooyin ka dhana cadaaladda kaga timid muwaadiniinta soomaaliyeed oo loo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidaas ayaa wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu soo saaray lagu yiri mahadsanid nuurdiin maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday nin ka tirsan xarakada al-shabaab
sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaheenna maxamuud cabdinaasir soo faysane. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed oo ay maxkamaddu ku soo eedeysay in uu al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca qaraxyada iyo sahminta meelaha ay iskugu yimaadaan dadka bartilmaameedka u ah kooxdaasi. ninkan ayay maxkamaddu sheegtay in uu sidoo kale ka dambeeyey fududaynta weerarro iyo qaraxyo laga fuliyey goobo kala duwan oo ku yaala Muqdisho, islamarkaana ay ku dhinteen dad badan oo shacab ahaa. gaashaanle sare Cabdulaahi Buulle xeer ilaaliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ayaa faahfaahiyey xukunka lagu fuliyey Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed oo ka tirsanaa xarakada al-shabaab. bismillaah. taariikhdu markay ahayd 30kii bishii 11/2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariistay dacwad ciqaabeedkii loo haystay Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed 41 jir ahaa ina shoobto shaacir ku dhashay xamar, kaasoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab una qaabilsanaa qaybta qaraxyada, isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada, sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo. dembiile shabaab Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah. maanta oo ay taariikhdu tahay 24kii bishii 12/2018 waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa. dhinaca kale gaashaanle sare Buulle waxa uu sharaxayaa xilliyada ay dhaceen weerarada lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed, goobaha ay ka dhaceen iyo sidoo kale khasaaraha ay geysteen waqtiyadaasi. waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 3/2017 qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel Weheliye, halkaasoo ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuna dhaawacmeen 17 ruux oo kale. b taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 4/2017 wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga, qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen 9 ruux kuna dhaawacmeen 10 ruux oo kale. sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar Itaaliya taariikhdu markay ahayd 8 bishii 5 2017 halkaasoo ay ku geeriyoodeen 7 ruux kuna dhaawacmeen 11 ruux oo kale. d taariikhdu markay 15kii bishii 5 2017 ciidamada amnigu waxay ku qabteen Cabdulqaadir Abuukar Shaacir Maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada Xamarweyne gaar ahaan XNA. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mararka qaar fulisa xukunno kala duwan oo iskugu jira kuwa ka dhan ah xarakada al-shabaab iyo dembiye kale oo ka dhexdhaca mararka qaar ciidamada qaranka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kormeeray xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. mahad maxamed cabdiraxmaan mutawakkil ayaa warkani faahfaahinaya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre ayaa maanta kormeer ku tagay golaha murtida iyo madadaalada qaranka oo ay ka socdaan howlo dib u dhis ah. xilligii ra-iisul wasaaraha ku guda jiray howlaha kormeerka waxaa goobta ku sugnaa shaqaale ka tirsan wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya oo halkaas ka waday shaqo maalmeedkooda isxilqaan, taasoo qayb ka ah qorshaha hay-adaha dowladda ay kaga qayb qaadanayaan ololaha isxilqaan oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kol hore ku dhawaaqay. ujeedka ugu weyn ee ra-iisul wasaare khayre u kormeeray golaha murtida iyo madadaalada qaranka ayaa waxay tahay inuu u kuurgalo howsha isxilqaan iyo siday u socoto, waxaana uu warbixin ka dhageystay maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure iyo injineerada wax ka dhisaya xarunta. maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure ayaa sheegay in aad ugu faraxsan yihiin inuu booqdo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya xilli ay ku guda jiraan howsha isxilqaan ee dib loogu dhicisayo golaha murtida iyo madadaalada qaranka, islamarkaana uu ra-iisul wasaaruhu qayb ka noqonayo barnaamijka isxilqaan ee maanta uu ka socday tiyaatarka qaranka. waxaa meel wanaagsan xilliga maraya dib u dhiska lagu sameynayo golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan la bilaabay.
banaanbaxyo looga soo horjeedo bajaajle xalay la dilay ayaa maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida warkani uu ku faahfaahinayo wariyaheenna jaamac maxamed saalax jaamac kadiye boqolaal shacab ah ayaa maanta isugu soo baxay isgooska degmada yaakshid ee gobolka banaadir kuwa oo ka caraysnaa dilkii xalay loo geystay mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajka dadka dibadbaxa dhigayay oo aad wejiyadooda looga dheehanayay tiiraayada marxuumka la dilay ayaa waxay dalbadeen in cadaaladda la hor keeno raggii dilay marxuum axmed shiile oo ahaa wadihii mootobajaajkaasi dilkaasi oo la sheegay in ay geysteen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya mid ka mid ah dadkii dhigayay dibadbaxa oo la hadlay idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay muhiimadda ay